Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaad kusoo dhawaataan cashirkeena labaad. Caawa waxaan idiin haynaa muxuu ahaa sida hadda calaamadan ku taalo laba gaari ayaa wadada isugu timid. Mid wuxuu ka imaaday dhanka bidix, midna wuxuu ka imaaday dhanka midig. Waxaa dhanka midig ka yimid gaariga guduudka. Gaariga guduudka ayaa mar walba u xaq leh inuu wadada maro. Gaariga jaalahana waa in uu istaagaa uu sugaa ilaa uu ka gudbo. Rest for links ayaa la yiraahdaa sharciga gawaarida. Xeerkaas ayaa u degsan. Waan kusii socon doonaa sawirro kale oo tusaalooyin waan soo qaadanaynaa. Mar walba meel walba aad joogtid rest for links ayaa la dhahaa. Marka way badan yihiin. Mar waxaa imaanayso afar gaari ayaa meesha soo wada istaagaya. Kolley tusaalaan kusoo qaadan doonaa cashiradeena dambe. Wuxuu yahay sida aragtaan sawirkan kaga muuqdo waa kana gaari kale ayaa meesha yimid. Gaariga kaleeteen waa midka cagaarka ah. Gaariga cagaarka iyo kan guduudka ayaa iska leh. Marka kan guduudka wuxuu xaq u leeyahay inuu sugo. Midka cagaarka ayaa horgudbaya. Marka hore guduudka wuu sugayaa, kadib ayaa cagaarka markuu meesha ka baxo oo guduudka gudbo ayaa haddana kii jaalaha gudbaya. Saas ayaa maaragtay muxuu ahaa sharciga uu yahay. Waayo kan hadduu gudbo kaa ayuu ku dhacayaa. Jaalaha hadduu baxo kaa ayaa ay isku dhacayaan, waana laga xaq leeyahay. Marka waxaa marka hore iska leh midka cagaarka ah, waxaa ku xiga midka guduudka ah, waxaa ku sii xiga midka jaala ah. Marka way sii soconaysaa insha Allah barnaamijkeena. Qayb kale ayaa haddana soo qaadanaynaa. Calaamad kale tusaale idinku soo qaadanaya.